آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. waxaan ka hadli doonaa waa dan guud dantii ummadda weey dantii degmada weey ayaan ka hadli doonaa haddii ilaahay idmo. maalmahanba waxaa soo noqnoqonayay arrinkii degmada hadday waddo tahay hadday tahay caafimaad tahay hadday ay tahay dantii guud ee ummadda. ama aad iyo aad waxaan u jecelahay inaan sheego had iyo jeer wixii dhaliilay jira iyo wixii wanaagay jiraba. wasiirka wasaaradda beeraha waa wasiir qaran, haddii laga tago hoos loo dhaadhacana waa wasiirkii degmada. had iyo jeer waxaan jeclay wixii dhaliilay jirana inaan sheego, wixii waxqabadee jirana inaan sheego ayaan jeclay. reerku wuxuu leeyahay salaadiin, reerku wuxuu leeyahay madax dhaqameed, reerku siyaasiyiin iyo waxgarad. ilaahay waa waxgaradee. dabeeto maalmo dhaweyto guddida waddada degmada laybaday waa la isku yimid oo aqoon-yahan hadday tahay iyo hadday tahay qurbajoogii reerka iyo wasiirkii iyo guddoomiyihii degmada waa la isku yimid. dabeeto arrin baa la gaadhay, go-aan baa la gaadhay. go-aankii la gaadhay waa la shaaciyey in guddidii hore la bedelo, guddi dambe lagu bedelo ayaa meesha timid. dabeetana waaweyn oo aqoon-yahan sheeganay way hadleen, si wanaagsan bay u hadleen, laakiin gadaal bay haddana wax ka hor saaray tiyo hadalkoodii weliga waxaa la iska ilaha mar haddaad qof weyn tahay waxaan waa record hadalkaada hadashaa meel buu gelaya. nusqaan yaanu kugu noqonin, wixii dambeed tiraana nusqaan bay kugu noqonaysa. waxaan doonayaa anigu in waxqabadkana la sheego, dhaliishana la sheego, madaxda qaranka ee degmada ka soo jeeda wixii dhaliil leeyihiin in la sheego, wixii waxqabad ay leeyihiin in la sheego. anigu waxaana ugaaskii ka sheekeynayay dhaliisha wasiirka maalmihii ugu horeeyey, maantana waxaan ka sheekeynaya waxqabadka wasiirka. waxqabadka wasiirka inaanu sheegnaa waajib bay nagu tahay, ilaahayna way nagala xisaabtamayaa. dhaliisha hadduu dhaliil leeyahay inaanu sheegnaana waajib bay nagu tahay. hore waxaan usoo sheegay dhaliishii, maantana waxqabadkaanu sheegaynaa. in wasiirka lala shaqeeyaa maanta waa waajib, mar hadday waddadii bilaabantay. in guddidii cusbeed lala shaqeeyaana waajib weeye. in guddidii hore si sharaf leh oo karaamo leh ay iskaga wareejiso wixii adduunay ku maqnaa iyo wixii ay hayeen ee qorshay hayeen inay si wanaagsan oo sharaf loo wareejiyaan wey. koogaas ahaan waxaan leeyahay kolley talada reerku kama wada goodo dadka, waxay ka goodaa madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta. wasiirka in arrinka loo daba istaagaana waa waajib bay nagu tahay. maanta mar hadday shaqadii bilaabanto shaqaynayo oo waxqabadkiisa aynu arkayno inaynu la daba istaagno, aynu la qabano, la shaqayno wey. salaadiintii iga horreysay sidii waxaan ku dardaarayaa siday aad wasiirkii hore ula shaqayn jirteen amba aynu la shaqayn jirnay inaynu wasiirkan dambena ula shaqayno ayay waajib nagu tahay. kolley taladuna waxaa wanaagsan in laga ilaaliyo dumarka talada. taladu rag bay ku wanaagsantahay, talada reerka mar hadday tala reer tahayna dumarku inuu soo farageliyaanba maaha. ilaahayna uu inoo sheego waa naga xaaraanay, naga ilaaliya tala dumar. taladeenu ha ku goodo waxgaradka, salaadiinta, uqaasha iyo wixii ragee joogay de amba siyaasi ha noqoto amba noqoto waxgarad. tala dumar wayna duminaysaa. tala dumar inaynu iska ilaalino ayaynu u baahannahay. qorshahaynu yaanu tala dumar noqon. waxaan mar labaad ku celinayaa, waxaa jirtay lacag loo soo qaaday dhismaha jeelka Allaybaday. jeelkii Allaybaday lacagtii la soo qaaday dee ciddii soo qaaday iyo ciddii haysay kolley waa la garanayaa. inay ku wareejiso wasiirka iyo guddoomiyaha wey iyo waxgaradka degmada. taasoo hawshii dee degmadu waxay u baahantay waxqabad, in wixii la dhaqaajiyaa loo baahayay. waxaana waa hanti ummadeed, hanti ummadeed bay soo gashaa, hanti dadweyne soo gashaa. hantiduna wax jeebka lagu ridan karaya maaha iyo wax cidi isticmaali karayso halis weeye. markaa walaal aynu ka talino wanaagga reerka, wanaagga degmada, isku duubnida reerka
يينا أنت فرار وقلنا غيرك هذي مدح نقمين نقطه يا هذي سياسي نقطه يا هذي نقطه أقويان وروح واحد لقيه هو مقع عقود هذا وحي كوس يعني وحنا نقول منه وحنا مركا يدو درداريا إن أرموه سي لو كلا قاضو إن واحد والله إنه إسكودوبني كوقا إنه كوقا ما إنه ما أنت وسير بات شو إيش لأنه وسير بات شو إنه لا شقي كل بكيت شو هذا دليل تهم ليش يصير شغلنا هذا وحقاتين وحقات كيس شيء ونلد بيستاجنوا المرة البا كعمود تشبه حقوي علينا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.